Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Misku aragtay isha oo ku gaduudata dareentid inay qashinkaaga jiraan subaxiina soo toostid iyagoo isku dhagan cuncun xanuun barar iyo ilin badan. Haddii jawaabtu haa tahay casharkan adigoo kugu socda ay ka faa'iideyso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada Eastern. Ciladan waxaa loo yaqaanaa daaf, afka qalaadna waxaa lagu dhahaa conjunctivitis. Waa caabuq ku dhaca xuubka gudaha ku jira ee ka hooseeya baalasha indhaha. Caabuqan waxaa keeni kara jeermis, bakteeriyo ama virus. Si fudud ayuuna ku faafi karaa, waxaana lagu kala qaadaa nooca bakteeriyada keento, salaanta iyo wadaagista waxyaabaha wejiga loo isticmaalo sida shukumaanada iyo qalabka make-upka. Nooca viruska keeno waxaa lagu kala qaadaa qufaca iyo hindhisada, kaasoo jeermiska hadduu gaaro ku tarmi kara. Sidoo kale waxaa jiro daaf ka dhasho xasaasiyadda, wuxuuna kaga duwan yahay kan caabuqa keeno inuusan lahayn dheecaanka adag, midabkana leh oo isha ku samaysma. Xanuunkan badanaa aragti ayaa lagu gartaa, waxaana lagu daaweeyaa bamaato ama goojo jeermis dila ah oo isha lagu dhibciyo. Haddii nooca xasaasiyadda ay tahayna, daawo allergy ayaa loo qaataa. Si aad uga hortagtid xanuunkan, indhahaaga iyo farahaaga kala ilaali, mar qof leeyahay wejiga ha ku tirtiran, qalabka make-upka qof hala wadaagin, barkinta aad ku jiifatidna joogto iskaga dhaq. Waana mahadsantahay.